marka waxaan rajaynaynaa inay soo hadlaan saxaaf iyo adna iyo faamilkii isku duuban waxaan rajaynaynaa inay soo hadlaan diinu rabbul ciza halkaas soo taagnaa diinu rabbul ciza wala markuu saa gacmaha isku kay halkaas taagnaa oo wallahi oo billahi oo talaa ala kulli xal waxay sheegaysa malahan waxay soo kordhinaysa malahan saaxiib aniga nin raga ahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبني سلامي دمان أصحابتي وحولن دافع عالم كميشة كلا جوكتان أبني سلامية حديد نوقع سبتوار على سبسكريب نوصار لايك نوصار برها بالشد أيام وحن كداود ويل سوماليات ودهوا اللي إدلي وإيشو عصتهاي أويا سيب سناب شات بان كداود إيا تيك توك ويل كاسو جوغي ماليشيا ودنك ماليشيا ديكنا dadku ka cabanaya dhahay waa leedilina wax weeyaan saxaaf wada taqaan dabcan adna channel odaygeeda ama xaajigeeda iyo amiira ayuu ka cabanaya sidoo isagu inoo sheegay laakiin dadka gacanta u qaaday ee dilay sidoo sheegay wax weeyaan saddex nin baa dilay sidoo sheegay isagu weeyaan dabcan inuu ooyay waanu aragnay wiilkaasi ka cabanay in la dilay isha casayd laakiin nabar kale oo dhiig leh kamaynan arag طبعا إنه ماشي مينان جوجن لكنه وحنو كهلنا أو نوحي أنو عرقنا يوحي لنو سوق بيه. سفارة ضدك إصابة على ماشي أبجوكتان إندونيسيا. أي سومالي كومترو. أرنكاس وحو قاري سفارة دا وحو قاري بوليسكا ودنك ماليشيا طبعا مركا إلهي بأوحي أقرصون اللي سكولايي لكن سيدو سوق الشيغة وحو الصحاف ويجي gurigayga igu yimi adna wuxuu yiri amiira raali gali amiira dacwa adna walaashid raali gali marka isagu wuxuu sheegay inaan amiira wax ku sameeynin aanu soo caayin laakiin amiira bariyahan baraha bulshada laftigeeda waa lagu caayayay waa lagu aflagaadeynayay waxaan arkayay sawiraha amiira leedahay oo la faafinayo xitaa sawirada marka dabcan amiira laftigeeda baraha bulshada mar lagu haystay lagu caynayay marka buuq baa baraha bulshada ka bilaabmay dadka reer TikTok iyaga dadka isku dira wiilka waxaan u maleynay in foosta lagu soo riixay leeyahay amiira asaga sawiradeeda sida khaldan u isticmaalay oo maartay ku sameeyay waxyaabo maxaa wixii lagu sameyn jiray photoshop sawir photoshop la soo sameeyay amiira oo dharkeeda xidho dharkii laga bedelay oo si kala laga dhigay camal marka wiilka dad bay istagaaleen أميرنا ما أعطي رباست بيكون قبلسي فيديو كستويل كلا جوس عيني رباست بيكون قبلسي سجى في كذا شيء وحوري مثلا ضد كيس عيني أنا جي فوستر يجوس الريحي أنا جون أميرة سوا عينين أيا قف قصي سوا عيا أم ببرها بشو يجوس أفلقات ديبة رباست بيكون قبلسي كل هذا كسر دجال قبل عمي لكن سجى في كيس ينوش شيء جي سكر دم يسترام واتان كفريا ودين الإسلام كأمريكا النقطة وأنا كأوضاع وعادي دب ملهن وده كرا gabadha raali garay waxa uu dhigi karaa baadi waxaan ku yiri maxaan sameeyo aan raali garay meesha ka bilaabata marka joogto meesha dagaalka dhan uu ka bilaabmada waayahay su'aal waxay ka taagan tahay marka soo guriga ku soo gala waa su'aasha meesha ugu muhiimsan oo dadka ka dhex guuxayso midkaan caadi way kor u hadli kartaa walaalka midka anagu noo imaan jiray una la baashaali jiray una naga tagi jiray ninkan hadduu albaabka soo gargaraaco ama qaybta hoose guriga intuu tago iska soo qoro isoo waco waxay la mid tahay adigan aan ku aqaano gurigayga usoo socday la mid tahay sababtoo waa nin aniga aqoon igala dhexeyso waa aqaano waa laga furo guriga wiil inta dhalinyarada ka furo markii asaga laga furo soo galana dee ragana ku daba xigidee waa kula joogo jabra ma qof baan maya waxa waaye moohan intaa kadib maantadii hore snapchat waxa iska soo dhigtay gabar jiijal dhaho oo qurux badan waa de walaalayaal haddaan qaldanahay iyo haddaan qaldantiin jiijo waa magac Soomaaliyeed waa magac ummadda islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed oo idil ay la baxaan cidda igu qabsanaysana hadda ku celinaa gabar jiijal dhaho qurxa waa inta kadib waa iska seexday marka anigu waa soo socday Soomaaliya u soo socday baasaboorkayga wixiga iska hagaagsanayay maalintii dhan ma seexan indhaha dhan iskuma qabanin bas baasaboorkiga iska dhiibtay lacagteeda dhiibtay maadaama aan ahay nin soo socdo oo wadankii u soo socdo baasaboorka dhibaha waa seexda galabkii markay ahayd 1 saac oo inaan seexan caaw markay ahayd 10 ahayd wallaahi oo billaahi oo tallaahi niyo maxay iga dhaarsiinaysaan diinta rabbul islaam allah iga saar mid yaro hadda halkaas fadhiyo ay igu soo garaac albaabkayga wallaahi hadal wallaahi oo billaahi oo igu tallaahi fadhiga lagu sugaa
marka anigu waa la yaab maxaa qaldan yaa fadhiga jooga waayo waa soo baxaya haddana mar kale qof kale ii soo laabta dhag 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 fadhiga lagu sugaa bartaan sug leerkaan daare bartaan oo fadhiista saxaaf bartaan oo saa u fadhiya halkaana waxaa fadhiyo wiil kaloo lagu magacaabo ragga saddexdooda ah saddex qaabay u kala baxeen nin anigii dharbaaxa nin anigii qabta iyo nin anigii nin saaxiibkii kale la dagaala marka aniga waxa ii farxad ah oo wallaahi oo billaahi oo tallahi aan ku faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay in aniga saddex qof ay iskugu kala tageen wallaahi waa ku faraxsanahay boqolkiiba boqol waa ku faraxsanahay ma calaacalayo ma oynayo ma qaylinayo ma buuqayo tan xataa haddeertaan waxaan waa iska su'aalo un iyo wax sheeg maadaama aniga aan waxaan soo boostigray laakiin wallaahi oo billaahi oo tallahi waa ku faraxsanahay in ani saddex raga iskugu kala tageen oo wallaahi ah saddex raga qof iskugu tageenna maba ahanba qof sahlanba uusan bahaynba qof loo soo gudbo uusan ahaynba gabarna waan dhali doonaa gabarna waan guursan doonaa lixaadkan aan leeyahay allah ay tiro weligii allihii qof dumar ahna lama tirsanin weligii allihii qof dumar ahna kuma mashquulin war wax allaala waxay rabta ha ahaato kuma mashquulin ane fahmaysaa intaa kadib adigu waxaa arkay gabar walaashii waddankan joogto laguna magacaabo amiira waa taqaaniin kulle dhammaantiinba meel walba oo aan ligu caynay ribosti taabanaysa ba ani caadi ila ahaa wax weyn ma ahayn waa ka socday sababtoo qof hadduu adiga wax lagugu caynaa oo ribosti taabto micnaheedu waxaa waye qofkan dee adimaba dee waxba kuma ahay dee waa caadi ribosti oo kuu taaban karaa aniga meeqo qof oo la caynaya ribosti u taabto wax weyn maa waxaas dad badan oo marka arrinkaasi hadduu jiro wiilkaasi uu saxaaf gacantiisa u qaaday oo siibay isagii asxaabtiisu dabcan wiilkan waa wiil dhalinyaro ah saad aragtaan baa baraha bulshada ka aragteen saki soomaali baa tiktokiisa ugu qoran iyo snapchatkaba waa wiil dhalinyaro ah dee saxaafna waa nin aabba ah oo mas-uul oo reer mas-uulka ah waliba dee carruur horhoon u joogto hadduu arigaa adu waxaa ku dhaqmay sidaa uu u dhaqmay yacni uu isagu gacanta u qaaday dee wuu ku qaldan yahay runtii aniga ahaan ankayga waayo wiil dhalinyaro ah inuu gacan u qaado oo waliba waddanka magan ku ah oo waddankiisii aan joogin walaal soomaaliyeed oo dalkiisii soomaaliya aan joogin dee dabcan gacan u qaada ma ahayn sida la sheegay waliba saki sharci waddanka kumale waa wiil yaro dhawaan waddanka soo galay siduu sheegayna safar buu ahaayo wuu sii socday soomaaliya kusii socday markaas saxaaf haddii arrinkaas uu ku dhaqmay waan cambaareynayaa laakiin inagu dhankaas saki umaynu dhegaysanay dhanka saxaafna kolley hadduu soo hadlo soo jawaabo waynu arki doonaa laakiin haddii lacala waxaasi run yihiin oo dee gacan loo qaado wiilkaasi oo si gardaraa badheera loo dilay waan cambaareynayaa runtii inkastoo aynu maaragtay dhegaysanay qaybtii saki soomaali waxaan rajeynayaa saxaaf iyo faamilkiisuna inay soo hadlaan oo dee ay kasoo hadlaan arrinkaasi dee lagu eedeeyey dabcan inankaas wuu ooyayey aada buu ciilanaa waanu aragnay in la dhibaateeyey laakiin waxay isku khilaafeen oo dhan oo xaqiiqo ah boqolkiiba boqol ma hayno waayo cadaalad wadaynu dhahna waa run wuu dilay saxaaf waa run wuu ka gardarnaayeen dee innagaa dhib inooga imanaysa dembi inooga imanaya laba qof oo isdilayba labada dhinac waa la dhegaystaa marka waxaan rajeynaynaa inay soo hadlaan saxaaf iyo adna iyo faamilkii isku duuban waxaan rajeynaynaa inay soo hadlaan wanaagana markasta laga shaqeeyo soomaaliyey qabiiladana iska daaya caayisiin qabiil markiiba qabiille ka dhigeen wixii arrinkii dadkii baraha bulshada joogay wax wanaagsanna ma aha dad shakhsiya isdilay qabiilla isma dilin ilaaha laga boqo